هياي 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 سومالي لاني سومالي لاني waxaa la yaab leh Somaliland qofka u hooseeya ilaa ka u sareeya waxay leeyihiin lafdhabarteenu waa xoolaha nool iyo reer miyiga 1840 khamiisood ayaa golaha wasiiradu shirayay khamiis qura oo ajandaha golaha wasiirada Somaliland uu ahaa in reer miyiga iyo xoolaha nool la horumariyo iyo sidii loo horumarin lahaa may dhicin golayaasha wakiilada iyo baarlamaanada iyo wasiiradu inay mushaharkooda dhameystiran bixiyaan weeyay hayay 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 Somaliland 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 waxa dhacay abaar baan baa dhacday dalkeeni abaar baa ku dhacday dalka oo dhan ay abaartu haysaa colaad baa ugu darsoontay la yaab leh Somaliland qofka u hooseeya ilaa ka u sareeya waxay leeyihiin lafdhabarteenu waa xoolaha nool iyo reer miyiga haddana miisaaniyad kasta $100 uguma jirto $100 reer miyiga iyo xoolo dhaqatada iyo xoolahooda $100 uguma jirto 1800 iyo 47 1840 khamiisood ayaa golaha wasiiradu shirayay khamiis qura oo ajandaha golaha wasiirada Somaliland uu ahaa in reer miyiga iyo xoolaha nool la horumariyo iyo sidii loo horumarin lahaa may dhicin ma maskaxdeenu ka dawaarsanahay markaynu leenahay waa lafdhabarteeni markaynu ognahay inay lafdhabarteeni yihiin markaynu ognahay mulkiilayaasha dalkan Somaliland la yiraahdaa inay yihiin reer miyiga iyo xoolahooda haddana meel $100 u saaran yahay iyo cid ka hadlaysa ma jirto Somaliland abaar baa dhacday Somaliland abaar weyn baa dhacday abaartaasi dalkoo dhan bay saamaysay berigii hore markay halkan oo kale marayso ciyaar iskuulku nus saacadooday bixin jireen macallimiintu mushaharkooday bixin jireen golayaasha wakiilada iyo baarlamaanada iyo wasiiradu inay mushaharkooda dhameystiran bixiyaan weeyay imika waa in reer miyigii loo gurmadaa ninkii kiilo timir heli karaya iyo ninkii foosto biyo heli karaya iyo ninkii heli karaya wax uu ku caawiyo ummadda waa inuu la gaadhaa oo sida ugu dhaqsaha badan leh dadka loogu qabtaa abaarta waa in loogu qabtaa sidii ay biyo u heli lahaayeen Somaliland ay hurdada ka kaca fadhiga ka kaca war hayay 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 abaar baa dhacday colaad baa ku biirtay gundheer colaadta gudta dheer leh waxa soo aftaraya madaxweyne adigoo ku dhiirada Ibrahim Accord oo saxeexa oo dawladaha kale ee kula jiraan inna itiraafaan ayaa cid waliba halka inoogu imanaysa nabadeenu saasay ku sugnaanaysaa dagaalada yaryar ee ka dhacaya dawladaha kale wadaan waxa soo aftaraya itiraafka oo aynu helo 3 dal oo kale oo kaliya oo ila itiraaf madaxweyne ku dhiiro Ibrahim Accord ku dhiiro si jeed ku saxeex dalkani dal buu noqonayaa war hayay 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 abaarta iyo colaadda reer miyigeeni lafdhabarteeni